waxaan ka gelaynaa cashirkeena afraad. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxaan ka gelaynaa cashirkeena afraad ee ku saabsan markaasi barnaamijyada packages program cashirka afraad ka ah, isla markaasna barnaamijka windowga ka ah cashirka labaad. wuxuuna cashirkana ku saabsan yahay window feature. window feature waxaa loola jeedaa inaad fahamtid windowga iyo xubnaha uu ku shaqeynayo. sideedaba barnaamij kasta oo kombiyuutarkan ka mid a markaa shido wuxuu kuula ekaanayaa muuqaal oo ceenkan oo kaleeta. muuqaalkaas ayaa loola jeedaa window luuqadda ingiliishka haddii la fasiro waa daaqad. hadda muuqaalkan noo muuqda sidaan ujeedna wuxuu egyahay sida daaqadihii oo kale. sidaas ayaa window loola jeedaa, waana magaca. feature-gana waxa waaye xubnaha uu leeyahay. before starting window feature, inta aanan bilaabin window feature, the first marka ugu horeyso we must understand, waxaa waajibna waa inaan fahanno what is the window maxaa la yihahdaa. windowga waxaa la yihahda inaan fahanno ayaa la rabaa. windows waxaa la yihahdaa wax kasta oo computerka ku jiro sida drives drafyada, econada, feelasha, folderada iyo programyada. haddaba drives hore ayaan usoo aragnay intuu ku jiraa my computer ayuu ku jiraa. computerka ayaa furaysaa, halkan waxaa ku jiro dhammaantood waxaa lagu magacaaba drives. haddii la furo muuqaalkooda wuxuu ekaanaa window waa saan oo kaleeta. econadana waxay saaran yihiin desktopka. waxaan desktopka saaran waa econis dhammaantood. sidoo kale files wax kasta oo computerkaaga ku jiro magacaadi aa fahmi karto. magacyada terminology-ga ee computerka isticmaalo iyo magacyada feelasha ee dadka ku seef gareystaan way kala yihiin. marka magacyada ay feelasha ku seef gareystaan oo dhan waa feelal. sidaas ayaa ku ogaan kartaa haddii aad computerka ku cusub tahay. folderna waa wax walba oo yellow ah. calaamad kasta oo yellow ama jaallo ah waxa waaye waa folder. program inta badan waxay ku jiraan start menu waa klik siinaysaa, kadibna all programs ayaa tegaysaa. meeshaas waxaa ku jiro waxaa lagu magacaabaa programyada computerka ku jiro ee lagu shaqeysta. barnaamijkaas waxaan kasoo saaranay barnaamij notepad la dhaho oo la doonayo bal ardada in lagu fahamsiiyo windowga iyo sida uu shaqeynayo. hadda waxaa lagu fasirayaa window feature, weli si fiican uma gaarin, laakiin waxaa ogaanaysaa ama lagu sharxayaa notepad-ka bal inaad wax ka ogaato. notepad assemble text editor waa program ay fududahay in qoraalkiisa la editgarayo for Microsoft Window. waxaana iska leh shirkadda Microsoftiga ee Windows sameyso. and basic text editor waa barnaamij bilowga hore ee qoraalka programka, kaas oo laga helayo dhammaan kombiyuutarada. farshan kastaa laga helaa oo shirkadda Microsoft Window ee sameyso. windowga ugu horeeyay la sameeyey waxaa lagu magacaaba window 1.0 1985 ayaa la sameeyey 1985. this programkan notepad-ka la leeyahay waxaa loo isticmaalaa web designing ayaa loo isticmaalaa. programka HTML-ka ayaa lagu design gareeyaa. waxaa jira programyo kale oo sida shaqada asaga u qabanayaan. barnaamijyadaas waxaa kamid ah wordpad, notepad iyo barnaamijyadan kale oo dhammaantood isku shaqo ay yihiin. casharada hadda aan baranayno uma baranayno sida rasmiga ah ee notepad-ka loo isticmaalo, laakiin waxaan ku baranaynaa effectiga ama saameynta uu ku leeyahay windowga. marka ugu horeyso waa inaa ogaataa sida notepad loo shido. click start menu ayaa click siinaysaa, kadibna all program ayaa tegaysaa, kadibna waxaad tegaysaa accessory, kadibna notepad ayaa click siinaysaa. waxaa kaloo sameyn kartaa searchka inaad click siiso oo meesha searchka aad ku qorto notepad magaciisa. any program oo aad raadinayso ama barnaamijka computerka ka dhex raadinayso ama inaad kicisa aad rabtid, sidaan oo kale ayaad u raadin kartaa. kadibna notepad-ka marka kuusoo baxo click ayaad siinaysaa, halkaas ayuu notepad kaga soo baxaya. notepad-ka muuqaalkan ayuu leeyahay. featurada ardayga inuu fahmo la rabo waa 9kan feature 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9kan ayaa la doonayaa inuu fahmo. halkan waxaa noogu qoran shayga magaciisa, halkan waxaa noogu qoran waxqabadkiisa. haddaba menu bar halkee la yihahdaa. notepad-ka markaad fiirinayso
meeshaan fail edit format ay ku qoran tahay menu bar ayaa la yidhaha magaceeda waxqabadkeeda waa sidan. use waxaa loo isticmaalaa itemkaad doontid inaad ka dooratid. title barka computer program kasta title bar ayuu leeyahay. midkaan hadda aan idinku tusay title barkiisa waa halkaas. meesha waxaa ku qoran packages program. barnaamijkan waa Microsoft Word. notepad haddii aan dib usoo kicino inta waxaa uga qoran untitle, meeshaan kalena waxaa ku qoran notepad. sidaas daraaddeed waxaa laga gartaa failka iyo barnaamijka uu yahay. kan ku xiga waxaa la dhahaa minimize. minimizeka waxaa loo isticmaalaa hide window in la qariyo. kan inaad qarisa daarati meesha click siinaysaa minimizeka minuska ay ku qoranta, kanna kligaa siinaysaa minimizekaas ayaa click siinaysaa halkaas oo ah meesha laga qarinaya. markaa dib usoo celinaysana dib ayaa click u siinaysaa. all minimize haddaa isticmaalaysid dhammaan horta waxaa loo isticmaalaa wixii kuu furan inaad minimize garaysid. red kligaa dhahaysaa meeshaan oo taski barka ka mid a, kadibna show desktop meesha ku qorantaa click siinaysaa. sidaas ayay all minimize ku noqonayaan. ama red kligaa dhahaysaa mar kale show open aa dhahaysaa, kulligood dib ayay kugu soo laabanayaan. maximize waa in la weyneeyaa ama waa in la weyneeyaa. meesha calaamadda dhexda ku qoran markaa u dhawaato maximize ayaa kusoo baxayso. minuska tan ku xigto kligaa siinaysaa maximize ayay ku noqonaysaa. waa inaad saas u weyneysaa. restore reduce waxaa loo isticmaalaa window restore. windowga in dib loogu soo celiyo calaamadan ayaa click siinaysaa, kadibna dib ayuu usoo laabanaya restore ayuu noqonaya. close reduce waxaa loo isticmaalaa window in lagu close. calaamada geeska ayaa laga close karaa. scroll barka kuuma soo baxaayo ilaa inaa wax isticmaasho mooyaane. scroll bar calaamadan geeska ayaa la dhahaa. marna kor inaa ujeedid marna hoos ujeedid si qoraalka loo arko. notepadka gudihiisa haddaa rabtid in lagu arko. example meeshan oo kale waxaan ku qoraynaa welcome, kadibna inter ayaa isticmaalaysaa si aa u samaysid space badan inaad samaysid. kadibna welcome ayaa halkan ku qoraysaa. sida noo muuqato hoostan waxaa ku qoran welcome, korna way qarsanta. si aad kor usoo muujiso scrollka ayaa isticmaalaysaa. kor waa aragta welcome, haddii kale hoos ayaad soo aadaysaa si aad u aragto hoos haddana mar kale scrollka. border waa calaamada geeska ee xuduudda. borderka waa qabanaysaa markii muuska calaamada muuska uu noqdo sida fallaar dhinaca bidix iyo dhinaca midig u kala muuqato ayaa dhab siinaysaa. kadibna waa dareegaraynaysaa dhinaca midig iyo dhinaca bidix ayaa u kala jiidaysaa si aad kor iyo hoos aa u kala jeedi. shortcut window feature. shortcut haddaa maqashid waa keyboardka in loo isticmaalo. minimizeka haddaa click inta ka siinaysay keyboardka ayaa u isticmaalaysa. maxaa samaynaysaa alt space n ayaa isla taabanaysaa. alt space marka hore taabanaysaa. marka hore alt ayaa taabanaysaa, kadibna space ayaa taabanaysaa. labadaba waa sii daynaysaa, kadibna n ayaa taabanaysaa. sidaas ayuu minimize ku noqonaya. alt space kadibna n. previews waa in dib loo celiyaa. alt tab keliya ku celinaysaa. inaad dib usoo celiso direct alt iyo tab ayaa isla taabanaysaa, kadibna dib ayuu kugu soo laabanaya. maximize waa in la weyneeyaa. alt iyo waxaa isla taabanaysaa waa alta space iyo x. alta space iyo x. alta space x ayaa taabanaysaa wuu weynaanaya. midda kale cashirka waa in restore lagu sameeyaa. restore waa in sidiisa hore laga dhigaa. alt space r ayaa taabanaysaa, sidiisa hore ayuu ku laabanaya. close waa in la xiraa. alt f4 ayaa taabanaysaa, sidaas ayuu ku xidhmaa. alt iyo f4 ayaa taabanaysaa, kadibna sidaas ayuu ku xidhmayaa barnaamijka. cashirkeennii afraad intaas ayuu nooga yahay. cashirka shanaad la socda berito hadduu alla idmo.